الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولي الصالحين وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر الأحبة، waxaan joognaa waqtiyo iyadoo waqtigan laga wada faa'iideysto ay ahayd, fursadahana inaan la dayicin ay ahayd. waxaynu ku jiraa xilli fasaxyo badan la galay, kuwa ka badanna fooda inagu soo hayaan. ubadkaniya in badanoo ilmaha ahayd, arday wax dhiganaysay iyo iskuulla furnaa iyo maamul iyo macallimiinka la hayay yaa maanta guryaha wada fadhiya. ardaydii guryahay joogaan, maamulladii guryahay joogaan, macallimiintiina guryahay joogaan. sax waalidku gaar ahaan hooyooyinkii wakhti firaaqo ay heli jireen bay hadda waayeen. oo dee carruurtu markay iskuul iyo dugsi meel ka wada aadaan, waxoogay wakhti u soo bixi jiray guryaha la wada joogaa. fasaxyihii sanadka dabayaaqadiisa oo la wada fadhiyina waa aad fadhigu badan doonaana waa inugu soo socdaan, oo shaqaale iyo xafiisyo badan la fasixi doono. nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu inagala dardaarmay labo inaynan dayicin. wakhtigaad firaaqada leedahay inaadan dayicin, intaad caafimaad qabta ee jidhkaagu xoogga leeyahayna aadan dayicin. wuxuu yidhi laba ilaahay aadamaha ku manaystay, gallad iyo nicmo weynna ku ah, wax badanna ay uga faa'iidaysan karaan. dadka intiisa badan way ku khasaareen, kama faa'iidaystaan, way ku khasaaraan. midi waa caafimaadka jirkoodu uu qabo. qof indhihiisii caafimaad qabaanoo araggiisu fayow yahay, xubnihiisii iyo jirkiisii xoog leeyihiinoo caafimaad qabaan, oan uga faa'iidaynin wax adduun anfaca iyo wax aakhara wax taratoona. iyo qof wakhtigiisii firaaqo badan haya, oon wax aakhara wax tara iyo wax adduun wax tara midna aan uga faa'iidaysanaynin. sidaasay dadku u badan yihiin. wuu soo toosa 24 saac markuu qayb ka mida seexdo, ilaa uu wakhtiga kala seexdo, wax badanoo adduun wax tarana ma qabsado, wax wanoo fiican oo aakhara wax tarana ma qabsado. dadka lala hadlaya waa un aniga iyo adiga, cid kale maaha. markaan isweydiina dhammaanteen, saaka waad soo toostay, hadda waxaan joognaa 7 saac. salaaddii subax 8 saacadood baa ka soo wareegtay wakhtigaynu tukannay. 5 waxoogay baan tukannay. haddiiba xataa 6 aan gaadhsiino 7 saac baa ka soo wareegtay. 7 saac maxaad aakhara qabsatay? maxaa adduunku anfacayood qabsatay? wakhtigaagiisa imisaadan garanaynin wuxuu ku baxay. waad soo baxday, telefoon baad kaadday, maantoo dhan baad gedgediday, 1 saac 2 saac baad ku jirtay, waad laabtay oo waad isku laabtay. aakhariyo adduun intaad eegaysid maxaad faa'iide ka haysaa? maxaa adduunkaagii ku anfacayo waqt 3 saacadood ku luntay? maxaase aakharaadii ku anfacaya? telefoonkani wax adduunkaagii ku anfacaya ma ka baaraysay? raxim intaad la hadashay ma xiriirisay? qof wax u baahan nacfi intaad la hadashay ma anfacday? qof su-aal diina u baahnaa ama adduunyo ah ma anfacdo ma uga jawaabtay? aduu ma ku kororsatay? wax ma ka akhriday aakhariyo adduunkaagii ku anfacaya? mise wax dembi ihaba markaad ugu fududdahay waxaan dhibi laqwi ahoo faa'iide aan lahayn baad ku mashquulsanayd, hadduusan dembiba ahayn. amaad waxun daawatay, amaad waxun qortay, amay dhagahagu wax macsiyo dembiya dhegaysanayeen, indhahaguna waxun daawanayeen. haddayna labadaa midna ahayn, soo laqwi iyo maalaayacni wakhtigaagi kuma lumin. wakhtigaagii maanta fasax baad ahayd, jumcay ahayd, dugsi maadan aadin, shaqanaydaan u kallihin baa laga yaabaa. maxaad faa'iidaysatay? intaan weeye maalin walba wareeggaan weeye. 7 saac hadday tagtay, 7 soo socota maxaad qaban doontaa? jumcada waad ka baxday, bannaankaad istaagtay, gidaarada ma sheekaysay? wax khayr lama qabatay? wax ku anfacaya ma samaysay? adduunyadaadii wax ku anfacaya ma ka shaqaysay? qofku inta wakhtigiisu qiimo la leeyahay buu wax ka taransadaayo ka tara. noloshaadu ma og tahay
inay saacado iyo maalmo la ysku daray tahay. waa saacado kadib maalmo isu bedelay, kadib toddobaadyo noqday, kadib bilo noqday, kadibna sanado noqday. markaad dhalatay durbo waa ka dhabarkuna soo goday, indhuhuna waa daciifeen, luguhuna waa tawargabeen, kadibna guriga iyo sariir fadhi baad noqotay. haddayba geeri iyo malakumood ku daayana mayd sariir saaran baad noqon. intuba marka la ysku daro waa maalmo, usbuucyo, bilo iyo sanado la ysku dardaray weeye. waktiguba soo intaa maaha. hadda waa yeeshay markaad xoogga badnayd maxaad soo qabsatay aakhiradaada iyo adduunka ay ku anfacayay, wakti intee leeg baad bixisay. saa darteed waxay soo nicmataani maqbuunun fiihimaa kaiiru min annaas. laba nicmo weynan ay wen yihiin baa sidan gaarkaa loogu xusay. caafimaadkuna waa qaaliyo markaad weydaad garan, laakiin waa nicmo aan la xasuusan. haddii 30kii bisha aan ku jirna hadda keliya 29 habeen aad si fiican u seexato, saacadaha qayb ka mida habeenee hurdadu cajcajis iyo xanuun kaaga meermeerto, intee nicmada ahayd sheegi mayside. xalay waan seexan waayey, saacad baa xanuunii qabtay baad ka sheekayn. xanuunka aad seexan weyday ku xasuusan maysid 30kaad seexanayseen nicmadii ilaahay ku siinayey ma ku shukriday, si fiicanna ma u isticmaashay. haddii caawa intay waxoogay xanuunsato, naqaska iyo neefi kugu dhegto, isbitaalka lagula cararo, oksijiin iyo waxaad ku neefsata lagugu xiro, dhakhtarku intuu kula tacaalo, irbadi iyo dawi iyo wax kugu rakibo, neeftu kaa soo baxdo, lacag kastana waad bixin oo laguu sheegay iyo boqolaal kun iyo malaayiin. alxamdu lilaahina waad nafisi, dhakhtarkiina waad u mahad celin. laakiin 60 sano rabbigii hawadaa bilaash kugu siinayey ma ku shukriday, mase aqoonsatay abaalka iyo nicmadiisa? maya. waxaad un ka sheekayn intaad nicmo hawo bilaasha hesho oo lacag la'aana oodan dhib dareemaynin oo 10 sana ka soo wareegtay, intaa xasuusan mayside. dhakhtarkiina waad sheegsheegiyo waad ammaani, lacagtii kaaga baxdayna waad sheegsheegi. tii bilaashka nicamka caafimaadka ahaydna meesha maba taallaba. bal u fiirsadoo cimrigeenna waxaan ka xasuusannaa intaan xanuunsannay. intaad xanuunsatay baad cimrigaaga xasuusataa, laakiin intaa caafimaadsaneyd ma xasuusatid. cimrigaaga markay xoolo kastoo tabcaday naftu halis gashoo la yidhaahdo hanti bay u baahan tahayna, tan iyo hantidaadoo dhan waad soo xaraashi. sabab caafimaad inaad hesho qiimaha halkay kaa joogto, hantidoo dhanna waad xaraashi. ilmahaad dhashay in kelli lagaaga bixiyana diyaar baad u tahay oo waad ku baryi. inuu baari yahay waxaad ka ogaan keliyihiiba eberku noqdaye inuu mid kuu bixiyo. laakiin 60 sano rabbigii 2 keliyoodoo bilaashoo caafimaad qaba ku siiyey, nicmadaa u xasuusan maysid oo ku shukrin maysid. intee baan caafimaad qabnay? intee baan nabad ku cawabarinay? maxaan se cibaado ilaahay geysanay? intee baan khayr uga faa'iidaysanay? qof kastoo inaga midoo xasuustaay inaan gaabinoon gabood fallay, maqbuunun fiihimaa kaiiru min annaasi nahay baad garan. wax tegay tiig ma leh. inta damba ma taba qabannaa? aanadaate waa la daba qabtaaye inta dambe aynu daba qabanno. maalin kasta ood xanuunsato bal isbitaalka tag, adoo xanuunsanoo isla yaabanoo le wax naf baa ku hays. isbitaalka markaad degto 100 kaa daran baad ugu tegi. markaasaad dhakhtarkii si aad xanuun ugu sheegataba garan waaye. maxaad sheegataa? 100 kaa daran baa safka fadhidoo halkan taalla. kuwa neefta adu waaba socotaaye, kuwa oksijiin ku rakiban yahay, kuway calooshu bannaanka taallaa, kuwa labadii indhoodba geb yihiin, kuwa saxaradii laga qaadayaa. mararka qaarkood waxaad isdhihi intan ilaahay caafimaadkan ku siiyey ummaddan waxaan haysta, ilaahay ku shukriyo iska noqo. laakiin wax ka fiicanun baad raadin. haddii aad eegtoon inta kaa caafimaad badanee didaysa, inta caafimaadka aad haysata hadda ilaahay ugu shukrin maysid. haddaa adigu intaa iska fadhiisatood kici weydo, aad tasbiixsan karto, in baa kooma ku jirtoon tasbiixsan karin. berri markaad kooma gasho ama carabka uu nabar kaa gaadho baa inaad caafimaad qabtoo tasbiixsan karta aad xasuusan. caafimaadka iyo sixadu marba in bay joogtaa. in kastood haysatabana waa nicmo ilaahay ood wax badan qabsan karto. adduunka haddaadan markaa qaban karinna aakharadii wax qabsan kartaa jira. walidaalika qofka muslimkii waktiga noloshu daqiiqada iyo sakanadu qiimay la leeyihiin. maxay ula leeyihiin? haddiiba dunidan aan tegayo 1 daqiiqa haddii la isiiyo
oo boqol jeer tasbiixsado ajir weyn oo bayna samaa'i wal ardi buuxiya oo aakhira zaad in noqdan la tagaya sadarteed daqiiqad kastaay aniga raasamaal iyo tabac weyn baan tabcan karaa ma tabcanaa waqtiga firaaqadan hayno in telefoon baad ku jirtaa in TV baad daawanaysaa in fadhi ku dir baad fadhidaa in jirdiinka taagan tahay in waxaad ku jirtaa website-aad akhriyaysaa maalintii in misaal quraan akhriday juska dhib ku ah juska in misaal lagu akhriyaa 10 daqiiqo telefoonka fadhi ku dir misuu ku jiraa 10 saacadood 10 saacadood markuu sii seexanayana bustaahu huwanay hoostiisu ka sayfeeriyaa habeenkii markuu isgadiyana intuusan mar labaad seexan uu shiraayo uu feeriyaa laakiin ihtimaamkaad garanaysaane marka laga hadlayo nabiga calaysay salaam qofkii manta habeenkii isgadiya oo adkaarta qaarkood akhriya naar baa laga xoreyn baa leeyahay waxa laga inaad tiraado qof hurdo isgadiya sabu istighfar oo xasuusan oo sabu telefoon ku xasuustay himmadii iyo qalbigaaga uu ku weynaa telefoonkaad ku xasuusatay hastay istighfaartu ku weyntahay way xasuusan istighfaartana wixii kugu weyn way xasuusataa soomada arag hadii qof xanuunsan iyo ilmo xanuunsan adag jiifto marka isrogto waad fiirin qandhadiisa taaban sababtoo ah hammi buu kugu hayay markaad seexanaysay inaad ka warqabto ninkay salaad iyo dhikri iyo quraan iyo tasbiix iyo istighfaar hammi weyn ku hayaan habeenkii markuu isrogo astaghfirullah subhanallah inuu yiraahday waa xasuusan laakiin hadaynan wax weyn kugu haynin de xasuusan mays inta nolosheena kamidaadna ku garan war waqtigii buu nabigu leeyahay ka faa'iideysta marka la waa nabigu lahaa shan ku qaban doonto shanta kale uga faa'iideyso caafimaadkaaga ka faa'iideysa intaadan xanuunsan firaaqada marka tahayna ka faa'iideysa intaadan mashquulin aqoon uga faa'iideysa waxbarasho uga faa'iideysa maxaan qabtaa buu ku leeyahay dhalinyarada wuxuu leeyahay maxaan qabtaa oo adduunka imisaa ku taala aakhirada imisaa ku taala noloshan mawjadaha ee mashaakilka badan ee hadda fooda saartay soo zaadiya sahay aqoona zaadiya sahay Allah ka cabsiya zaadiya sahay khibrada iyo waxbarasho soo kaagama baahna mawjadaha nolosheed galayso ee intii horena wada burburisay intii muddo ku soo jirtay kuwa yeeshay jirkoodii mawjadahan say madawadu u dhacaysay doon alwaax u fuqday wada noqdeen anna taam ba alwaax iyo cadcad ku kala fiiqi doonto khibrad baad u baahan tahay aqoon baad u baahan tahay ilmaheeni fasaxiyay ku jiraan macallin hadaad ahayd mashquulsan maanta fasax baad tahay arday hadaad ahayd iskuul subax kala hay hadda waad joogtaa aakhiri adduun maxaad kasbatay waqtigaaga khayr ma gelisay fasaxyaa lagu wada jiraa jumciye khamiis ba qaar fasaxiyeene jumciye khamiis xageed gelisay ciyaar iyo maala yacni iyo xan iyo dambi baan wada gelinaa bal makhaayadaha casarkii tag meel la kala fariista malaha bal dhaga maxaa lagu mashquulsan yahay badankood dambi baa lagu jiraa maysa aakhira sugaysa meydka marka la aasayo baa dambigi lagu sii jiraa kii aan hadda ku tukanayna kuma waana qaadano war ilaahaynu ka cabsano war waqtigaan ka faa'iideysano war intaan caafimaad qabno in xoog galeenahay aakhiraan wax geysano adduunkeenu ummadii aadamaha ilaahay wax tarayaan ka shaqeyno iyagana adduunkana nacfi buu noqon aakhirana ajir iyo thawaab buu noqon waqtiga aan dhuminaynana aan ka dayno inaad u timaado qof oo ku yimaado ama ku yimaado oo ku yiraahdo warniyo kale waqtigaan isku soo dhaafina buloodi baan aadayna waqti isku soo dhaafino barnaamij aan daawana waqti aan isku dhaafino maxaadaan fadhi ku dir fariisana muxuu ka hadlayaa kaliya aan waqtiga is dhaafino waqtigii baa culays noqday wuxuu noqday dib la is dhaafinayo isaga laftiisa mushkilad in la isdhaafiyo balaayo in laga takhaluso u baahan noqday wala maxay ka dhigan tahay salaadii cibaadadiina culayska aan iska ridno kuleh salaada culayskeedana aan iska ridno waqtigana aan isdhaafino waa dib baad isdhaafinayso ma ahayn sida saxda waxay ahayd noloshaaduba joogitaanka dunida waa waqtigaas oo la isku dardaray oo yar yar ka inta la isku dardaray baa cimriga aad joogtan noqotay oo waqtigeena aynu cibaado gelino aynu tasbiix gelino aynu cilmi iyo waxbarasho gelino aynu waxa doomada anfaca gelino inta haddaan gelin weyno waxa dambiga ah iyo waxa doomada ilaahay dhibaya aynu ka dayno oo inta cidla iska aad haddaad waqtigaagi wax khayrood gelisa weydo gurigaaga ku ekaw meel dur cidla iska aad
intaad dad dhibi lahayd oo dembaabi lahayd ama dad aad wakhtigoodii dhaafin lahayd ood ka mashquulin lahayd keligaa meel cidlaa iska tag oo dhibkaaga inaad aadamaha kala fogaato sadaqatun buu nabigu ku tir intaa sadqa ka dhigo ilahay khayrka hayna waafajiyo ku wakhtigooda iyo cimrigooda khayrka uga faa'iidaysta wanaaggana sameeya in allah inaga dhigo allahuma inaa nasaluka alhuda waltuqa walcafaafa walghina allahuma alhamna rushdana waacidna min shuruuri anfusina allahuma aati nufuusana taqwaha allahuma zakiha anta khayru man zakaha anta waliyuha wmawlaha allahuma ina nas'aluka ridaaka waljanna ونعوذ بك من سخطك ومن النار اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم اختم الصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا اللهم اهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات والنيران اللهم احينا على الإسلام ومتنا على الإيمان واحشرنا في زمرة خير الأنام ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر